kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal Mili baad joogtaan ku soo dhawaada halkani oo aad kala socotaan wararkii u dambeeyay Soomaalida iyo caalamka iyo guud ahaan dagaalada ka socda wadanka Itoobiya iyo xaaladihii u dambeeyay qodobada aynu wararka ku soo qaadani doono diiradana ku saari doono waxa kamid ah xaaladihii u dambeeyay dagaalada ka socda wadanka Itoobiya waxa la soo sheegay in dagaalo si xawli ah ay uga socdaan deegaanada Canfarta iyo sidoo kale Axmaaradu رئيس الوزراء أبي أحمد أيه وحال أركي إسقو كسر مغضي فريمة هراء الدجالدو أي كسر عدان إسقو أقوب باقي إن قليه وزيره إن إيجونا سيدي سو كلاي كسر قب قاتان إن إمادان دجالده فريمة هراء أي كسر عدان sidoo kale waxaynu eegi doonaa dagaaladu aaga ay sida xoogan uga socdaan iyo waxyaabaha haatan ba ka soo baxaya dagaaladaasi qodobadaas iyo qodobo kale aynu halkani ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal ku soo dhawaada channelka oo subscribe noo sar like noo sar asxaabtadana la sii wadaag waatahay markale soo dhawaada daawadayaal hadii aynu ku bilaawno dagaalada sida xoogan uga socdo deegaanka Canfartu waxa la soo sheegayaa in deegaanka Canfartu dagaaladii ugu xoogan ay sida xawli ah ay uga socdaan kooxaha TPLF iyo OLA oo isu heshanaya ayaa halkaasi ka wada dagaalamaya si wada jir ah waxaana la arkayay in militariga Itoobiya iyaguna iska caabin ka helaya Canfartu ayaa halkaasi kula dagaalamaya waxaynu ogeyn in Mili iyo sidoo kale Shawaroobe iyo qayb kamid ah deegaanada halkaasi ku dhow in ay dagaaladu ka socdeen balse haatan waxa la sheegayaa in ay ku dhow yihiin dhankaas iyo Birhino oo ah magaalo istiraatiiji ah halkaasina dagaalo xoogan ayaa dabcan ka socda TPLF iyo sidoo kale xulafada iyadoo la jirto ayaa waxa ay sheeganayaan in ay guulihii ugu weynaa ay gaareen 24 saacadoodkii u dambeeyay dagaaladii ay la gadeen ciidamada militariga ee Itoobiya dadka kale militariga Itoobiya ee dawladda dhexe ayaa iyaguna waxa ay sheeganayaan in ay guulo ka gaareen sidoo kalena ay dabarjab weyn gaarsiiyeen kooxaha TPLF ee ka helaya caawinta OLA labada dhinac guulo ay sheeganayaan balse lama xaqiijin karo cidda ay haatan ba ay ku gacan sareeyay dagaaladu wali si xoogan ay halkaasi uga soconayaan waxaana la filayaa in kooxahani TPLF iyo sidoo kale ciidamada militariga Itoobiya ay iyagu halkaasi ku wada dagaalamaya in ay soo gaarayaan dagaaladu kuna sii fidayaan deegaanka Canfarta dagaal xoogan ayaa dabcan dhinacyadani kala duwan ee dhankaasi ka socdo balse deegaanka Axmaaradu ayaa isagana ah mid si xawli ah uga socdo dagaaladu ayna dib uga laba kacaliyeen waxaynu ogeyn in Dhisay iyo Kombolja oo ah magaalooyin istiraatiiji ah in ay ku gacan sareeyeen dagaalo sidoo kalena aan ilaahay in ay qabsadeen kooxaha TPLF balse halka haatan waxa la soo sheegayaa wado weyn oo istiraatiiji ah oo isku xirta Addis Ababa iyo Kombolja iyo sidoo kale Dhisay magaalooyinka wadooyinkaasi soo galayay in ay ciidamada militariga Itoobiya iyo sidoo kale kuwa isbahaysiga muujinaya in ay halkaasi dagaalo xoogan ay ku dhaxmareen TPLF ayaa iyaguna sheegtay in ay dagaaladii u dambeeyay ay la galeen dhankaasi deegaanka Axmaaradu ka dhacay in ay gabi ahaanba jabiyeen ciidamada militariga Itoobiya sidoo kalena dhifaysyo hor leh ay ka kiciyeen oo ay gabi ahaanba ka saareen meelo waaweyn oo ay horay ugu lahaayeen fadhiisiimo ciidamada militariga Itoobiya waxaana la soo sheegayaa in halkaasi ay ka jirto cunaqabateeno aad u weyn sidoo kalena ay xiran yihiin wadooyinkii isku soo mari jiray oo u fududeyn jiray dadka shacabka ah waxyaabaha laga maarmaanka ah sidoo kalena waxa la soo sheegayaa in shacabku halkaasi dagaalada ay isaga barakaceen balse qayb kamid ah dadkii halkaasi isaga barakacay ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalada halkaasi ka socdo kuna tilmaameen in ay yihiin dagaalo xoogan sidoo kalena ay sii xoogeysanayaan jabhadooyinkani isbahaysanayo waxayna sheegeen in jabhadooyinka isbahaysanayo ay aad u tiro badan yihiin sidoo kalena ciidamada militariga Itoobiya ay ka dareemayaan in ay isaga baxayaan goob waliba ay kooxaha TPLF sidoo kale OLA iyo jabhadooyinka kaleba ay soo qaadaan weerarada in ay isaga baxayaan waxaana la arkayaa in TPLF ay ku sii siqayaan in ay u soo dhawaadaan dhankaasi iyo magaalada Addis Ababa oo haatan ba u jirto halka ay ka dagaalamayaan 220 kilomitir
sidoo kale waxaana halkaasi ka marneen in ay iyaguna jabhad magaceedo lagu magacaabo jabhad beersan guuli oo iyaduna ka dhex dagaalamayso deegaanka dhexdeeda sidoo kalena doonaysa in ay ka soo horjeesato xukuumadani ay gabi ahaanba xoreystaana deegaankooda ayaa iyaguna waxaa la soo sheegay in dagaalo culus ay deegaankaasi reer beersan guuli ay ka socdaan dhanka kale deegaanka jabhadda xoreynta Oromiya ama deegaanka Oromada ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay iyaguna dagaalo ka bilowdeen waana dagaaladii ugu xooganaa sida la soo sheegayo halkaasina waxa ka dagaalamaya jabhadda xoreynta Oromiya oo magaceedu yahay OLA jabhadaasi horey waxa xukuumadda Abiy Ahmed ama aan dawladda dhexe ee Ethiopia baarlamaankuna ay ansixiyeen baarlamaanka Ethiopia in ay tahay jabhadaasi jabhad argagixisa jabhadaasi waxaana loo gahay in qaybo badan oo haatanba deegaanaha ayna ku fidsan yihiin waxaana la arkayay iyagoo ciidamo aad u tir badan ku sii daabulaya dhankaas iyo wadooyinka gala magaalada Addis Ababa halkaasi waxa ka muuqda in magaalada Addis Ababa ay haatanba kusoo fudbo yihiin dagaalo culus walow aan la xaqiijin karin maalmaha soo socda in ay dhici karaan wada hadallo ama xabad joojin sida ay haatanba ay wadaan dalalka caalamka iyo midowga Afrikaba balse guud ahaan wadanka Ethiopia dagaalo xoogan ayaa waqti xaadirkan ka taagan oo afarta jihaba ay kala dagaalamayaan waa tahay saaxiibayaal hadii aynu u soo laabano ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa uu amar ku bixiyay in isagu iyo sidoo kale golahiisa wasiirada ay tagaan furimaha hore ee dagaalka maanta waxa la arkayay Abiy Ahmed oo booqday furimaha hore ee dagaalka sidoo kalena ku sugan balse amarkii ka soo baxay ee ahaa in golihiisa wasiiradu iyaguna ay ka qayb qaataan dagaalka sidoo kalena ay tagaan furimaha hore ayaa qaar kamid ah ka soo jawaab celiyay iyagoo ku raacay arintaasi sababaha Abiy Ahmed uu haatanba uu u tagay furimaha hore dagaalka mar wax laga weydiiyay ayaa waxa uu sheegay in isaga naf ahaantiisa uu doonayo in uu dagaalamo sidoo kalena uu u dhinto wadanka Ethiopia uuna doonayo in ay xabada ay wada qaataan guud ahaan sidoo kalena lala dagaalamo kooxahani TPLF iyo guud ahaanba mucaaradkani ee haatanba maleeshiyaadka ee ka dagaalamaya wadanka Ethiopia waa Abiy Ahmed intaasi waxa uu ku daray in qof waliba oo muwaadin Ethiopian ah ay xaq u leeyahay in uu u dagaalamo wadankiisa sidoo kalena uu ka qabto kooxahani ee haatanba ka soo horjeeda dawladda dhexe doonayana ayuu yiri in Ethiopia ay burburiyaan dadka shacabku waxa ugu baaqay in ay hub ka qaataan sidoo kalena ay la dagaalamaan kooxahani meel waliba ay ku arkaan dagaal ay la galaan Ethiopia haatanba guud ahaan dagaalo ayaa ka socdo balse lama oga Abiy Ahmed sababaha wada hadaladii ay doonayeen qaybahani kala duwan uu u diiday oo haatanba ugu baaqayo in dagaalo hor leh ay qaadaan waa tahay saaxiibayaal intaasi aynu ku soo gabagabeynayna war waxaynu idinkaga haynay guud ahaan wadanka Ethiopia iyo dagaaladan hareeyay haatanba ka socdo intaan wararkan war lamid ah oo la xiriira aynu halkan idinkugu soo gudbin doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.